waxaa loo baahan yahay gabar garooba oo wadata hal cunug. yaa shiikhow warmagaroob ayaad raadinaysaa wadata hal cunug wadaadka waad aragtaan wuxuu baafinayaa meel suuqiisu soo taagay waxaa loo baahan yahay buu leeyahay gabar garooba oo wadata hal cunug shuruudo badan oo kale wuu sii tixi doonaa muuqaalka insha allah waa wada dhammaysan doonaa bal muuqaalka xigana aynu isla eegno uura qaada qofka ii yeelna ma aqaano salaamaad kii horeba kanaa ka daran gabadhan waxay taagan tahay uur ayaan qaaday qofka ii yeelayna ma garanayo insha allahu tacaala labada muuqaal ayaynu insha allah wax ka odhan doonaa maanta bal aan isla waxa weeye daawano muuqaalada oo dhammaystiran iyo mid walba waxa uu ku saabsan yahay iyo waxa aan ka dhihi doono ayaynu insha allahu tacaala aynu arki doonaa waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad dhammaysataan siina sheergaraysaan laygta saartaan fikirkiinana aad ka dhiibataan ayaan rajaynayaa waa kan muuqaalkii koowaad isaga oo sii socda bal aynu isla fiirino salaanta koowaad isbarashada waa $5,000 gacanta loogu shubo. yaa isbarashada koowaad maa 5 kun lagu bixinaya waa gartay shiikow bal noo wad waa inay Soomaali tahay, waa inay Muslim tahay, waa inay Hawiye tahay, dee laakiin shiikh hoos baad u degtee bal haye ku soco waa inay Hawiye ka sii tahay Habargiir, waa inay Habargiir ka sii tahay Sacad waa inay ka sii tahay reer Nimcaan. waa kaa hadhay halkaas ayaa sheekh kaaga hadhay anugu halkaas ayaan kaaga hadhay gabdhaha soomaaliyeed in la kala guro waxa weeye waa arrin khaldan weeye ninkan wadaadka sheekha ah heerkaa uu sheegay waa heer sharaf leh waa heeraha soomaaliyeed ka mid ah laakiinse waxa aan diidaya waxay tahay in gabdhaha soomaaliyeed la kala guro oo qabiil qabiil loo fiiriyo oo la dhaho tanaa heer hebelah tanaa i xigta xataa deegaanka haddii aad qofka u fiirisidoo dee aad dhahdid qofkan aad siira dhaqan fahmaysaan waa macquul laakiinse mar walba waxa weeye muhiimaddu waxay tahay qofkan saa isu fahmaysaan meel kasta oo soomaaliya uu ka soo jeedo waa isku mid gobol kasta uu ka soo jeedo qabiil kasta uu yahay gabdhaha soomaaliyeed waa seem wax ay ku kala duwan yihiin ma laha dhammaantoodna waa gabdho sharaf leh oo waxa weeye wada muslima isku wada kalara dhammaan waxaynu nahay dad soomaaliyeed baan wada nahay isku kalar baynu nahay isku diin baan nahay intaasba haddii aynu ka midaysan nahay waxa weeye qabiil qabiil iyo jifo jifo iyo reer reer loo sii fiiriyo waa khalad weeye muuqaalkana ujeeddada aan usoo qaatay intaas ayay ahayd inaa arrintaas ka hadlo kolley dee ninkaas waxa weeye weyn qaabka shiikhnimadu ka muuqato xataa haddii uusan shiikh ahayn dee ninka weyn ah ee waxaa ku hadlayey unbaa maaragtay intaan arkay aan sidhi bal xoogaa ka falceli dhalinyarta soomaaliyeed waxaan ku baraarujinin lahaa in ay qabyaaladda iyo qabiilka iyo waxa ay iska daayaan qof walba qofka uu fahmayo dee inuu raaco gabdhahana waxa lagu doorto dee waa akhlaaq iyo dhaqan ayaa waxa weeye ugu muhiimsan labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan dee wixii kale lagu dooran jiray ama qurux ama waxa weeye hanti iyo wixii la midana dee waa ay jiraan laakiinse labadaas ayaa ugu muhiimsan maadaama dee dhammaantiin innagu aynu wada muslim nahay gabadhu haddii aad akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda ay fiican tahay oo aad isfahmaysaan waxa weeye waa halkii la rabay weeye waa sidii la rabay weeye
muuqaalkana intaasaan usoo qaatay kolle wadaadku intii hore waa xoogaa waa iska yara xaraabeeyey oo gabar garooba ayaan raadinaya ayuu yidhi ya gabdhaha garoobkaana dee waa gabdhaha kale unbay la mid yihiin waxa weeye iyaguna wax ceeba ma laha muuqaalka halkaas ayaan kaga gudbayaa bal muuqaalka kale ayaan isna wax yar ka odhan doonaa uuraa qaaday qofka ii yeelna ma aqaano gabadhan waxay taagan tahay uur baan qaaday qofka ii yeelayna ma aqaano waayahay gabar balsee uurka ku qaaday waxoogaa noo faahfaahi waxay ii keentay baati isar iyo buumo miya ma aqaano oo walaalkeed uu leeyahay haye buumay uureeye unbal hana dhihi anna sarwaalka waa xirtay sidaa darteeda sarwaalkii aa xirtay wuxuu lahaa shahwada wiilka gabadha walaalkeeda saas darteed aan uuraa qaadin waan gartay gabadha dhalinyarta ah ee aad aragtaan waxay rabtaa inay inaga dhaadhiciso surwaal baan xidhay saasaan uur ku qaaday horta surwaal la xidhay baa uur lagu qaaday horta arrin macquula ma aha sida waxa weeye hadalkeeda ka muuqata horta dee qof run sheegaya umaysan eekaynoo mar surwaal bay leedahay mar baati miyay tiri mise dirac wax saasay tiri sidoo kale dee surwaal qofku markuu surwaal uu xidhanayo dee kolley surwaal qoyan qofna ma xidhanaye surwaal qalalan buu xidhanayaa marka surwaal baan xidhay saas igu uureeyey horta arrintaasi arrin macquula ma aha iyaduna waxay ujeeddaday ka lahayd muuqaalkan ma garan karno iyo sababta ay u duubtay ma garan karno ma sheegi karno dadkan qaar baa caanraadis u duuba qaar baa waxa weeye intay iska wareeraan halkaa iska soo fadhiista marka waxa weeye qaar baan ogeyn hadalladan waxa ay sheegayaan ee khaldan ee ay ku hadlayaan inay wax damage u geysanaya carruurtooda ehelkooda iyo faamilkoodaba inuu waxyeello ku noqonayo oo waxa aad maanta sheegtid uu halkaa uu kugu jirayo dad badan ayaan fahansanayn amaba ka fakarin laakiin waxaad ogaataa wax kastoo aad sheegtid oo halkaas waxa weeye baraha bulshada la soo geliyo waa wax weligii ku daba soconaya marka qof kastaaba waxa uu sheegay inuu ka digtoonaado oo uu iska ilaaliyo gabdhuhu ay xishoodaan wiilashuna ay xishoodaan intaas ayaan rabay in maaragtay isna aan ka dhaho muuqaalkaas dhammaantiin waa idin salaamaya meel kastoo aad joogtaan khayr baa idiin rajaynayaa muuqaalkana intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu